magaalada Nairobi ee dalka Kenya laga helay meedka gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Farxiye Axmed taas oo si lama filaan ah loogu arkay qol hotel oo ku yaalo xaafadda South B subaxnimadii hore Isniinta 1 Sebtembar sida ay sheegeen warbixinada booliiska. Farxiye Axmed waxay hotelka timid habeennimadii Axadii oo ay taariikhdu ku beegnayd 31 Agost iyadoo ay la socotay nin Kenyan ah oo magaciisa lagu sheegay Chelsea Mwangi. booliiska saldhigga Mariguni oo ah kuwa sida tooska u maamulay baaritaankan ayaa waxay sheegeen in ninkaasi Mwangi uu qolka ku kireystay lacag dhan 400 oo shilinka dalkani Kenya isaga oo ay la socotay gabadha geeriyootay. labadooduna waxaa la xaqiijiyay in habeenkaasi halkaasi saxdeen. subaxnimadii Isniintii habeenay ka tirsan shaqaalaha nadaafadda ee hotelkaasi oo magaceeda lagu sheegay Mora ayaa dareentay shaki kadib markii aragtay in qolkooda uu iska furan yahay. markii ay gudaha u gashay qolka waxay si lama filaan u aragtay meedka Allah u naxariistay Farxiye Axmed oo dul saaran sariirta iyadoo oo uu jirkeeda ka muuqdo dhaawacyo dhiig fara badanna uu markaasi ka baxay sankeeda iyo afkeeda. dhaawacyada muuqda iyo dhiigga ku faafay gudaha qolka ayaa sababtay in isla markiiba booliiska lala xiriiro kuwaas oo markiiba bilaabay baaritaanada. taliyaha booliiska oo arintaasi ka hadlay waxa uu yiri sababta rasmiga ah ee keentay geerida gabadha wali lama ogaanin balse waxa la wadaa baaritaano ku aadan kiiskan iyadoo markaasi la baari doono dhacaanka ama sun ama xitaa markaasi la baari doono jirkeeda. booliiska waxay sidoo kale sheegeen in ninka la socday Farxiye oo lagu magacaabo Chelsea Mwangi uu yahay tuhmanaha koowaad ee markaasi lagu tuhmayo in uu falkan ka dambeeyo waxayna sheegeen in ay ku daba jiraan oo ay markaasi gacanta ku soo dhigi doonaan. dhanka kalena ciidamada amniga ee baaritaanada waday ayaa waxa ay maamulka hotelkaasi ka codsadeen in uu soo gudbiyo muuqaalada CCTV-da si loo helo xog dhameystiran oo muujin karta dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay habeenkaasi ka hor inta aan la dilin Allah u naxariistay Farxiye. geerida naxdinta leh ee Farxiye Axmed ayaa si weyn u gulgashay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa ku nool xaafadaha Soomaalidu ay degaan sida Eastleigh, South C iyo sidoo kale xaafadda South B oo ay dhacdadan ka dhacday.